الله الرحمن الرحيم. halka waxaan ku soo bandhiganaa war gaaban oo ku saabsan geedka hadiga, geedka malmalka ama dhidinka waxa uu ku baxaa intiisa badani labada gobol ee Sool Nugaal Valley hore gobolkii Nugaal oran jiray ee Sool iyo Togdheer ama Cayn Valley. geedkani waa geed abaareed aan nafbixin xilliga adag ama abaarta ah. xilliyada abaarta ah geedkani waxa uu galaa dormancy suurid ama suuxdin. waxa uu tuuraa caleenta oo waa dhisidhiyoos geedkani waxa uu dhiqaa xabag caan ah oo loo isticmaalo waxyaalo warshaduhu isticmaalaan. Soomaalidu waxay u isticmaashaa waxyaalo daawo ah. dalka Jarmalka ayaa warkaas haya oo xabagta waayo dawladda Jarmalka ayaa u badan waxa qaata xabagta Suudaan iyo Soomaaliya oo malmalka. geedkan xabagta laba qaab ayuu u soo daayaa, qaab dabiici ah iyo qaab dad sameeyay oo la turturqo oo la dhaho waa zarac. geedkan oo afka Ingiriiska lagu dhaho mayrax kan ugu suuqa fiican malmalka Soomaaliya waa malmalka Laascaanood suuqa dibay oo looga yaqaan mur Laascaanood. gobolka Sool alaaba dadku masarcan taas waxay keentaa in malmalku si natural ama dabiici u baxo. caleenta malmalka marka roobku da'o xoolaha way cunaan, gaar ahaan geela wuu cunaa. intaas ayaanu ku soo ururinaa guud ahaan geedkaas oo maxaan ku raacdaa musawiradiisa aan ku soo bandhignay halkaas. geedka hadigu waxa uu ka baxaa dhulka uu ka baxo malmalka oo labada gobol aan soo sheegnay inta la yaqaan iyo gobolka Soomaalida galbeed. hadigu waxa uu kaga duwan yahay malmalka isaga oo inta badan ka baxa buuraha halka malmalku ka baxo banaanada. hadigu waa geed abaareed adkaysi badan oo ka adkaysi badan malmalka ama dhidinka. taas oo ay dhacdo waa hadiga in abaarta uu adkaysto 4 ilaa 5 sano haddaan roob ku diin buurta uu ku yaalo. waa geed caleenta tuura oo dhisidhiyoos ah. sida malmalka ayuu galaa suuris dormancy. hadigu waxa uu sii daayaa ama dhiqaa xabag cad taas oo dadka Soomaalidu u isticmaalaan daawo ahaan. hadiga caleentiisa waxa cuna xoolaha gaar ahaan geela. xabagta hadiga Soomaalidu ganacsi kuma samayn midda suuqiisa ayaanay Soomaalidu weli gaarin ama xiriir la yeelan waayo dhir badan oo adduunka qaali ka ah oo malaayiin dollar laga faa'iido ayaan Soomaalidu weli dhoofsan sida xabagta cadaada Acacia Senegal taas oo dawladda Suudaan la cadeeyay inay ka faa'iido 12 milyan oo dollar. kaas oo markaas xabagta hadiga suuqiisu faa'iido weyn ayay u ahaan lahayd xabagta hadiga hadii gobolka Sool suuq looga helo adduunyada. wabillahi tawfiiq. bismillaahi raxmaani raxiim. anigoo ah arday ka mid ah kulliyadda beeraha iyo xoolaha waxaan jeclahay inaan halkan macalinka su'aal ka weydiiyo maadaama uu si kooban noogu sharaxay labada geed ee malmalka iyo hadiga. su-aashan weydiinaya macalinka waxay tahay geedka malmalka dhererkiisu intee gaadhaa ama dhererkiisu intee weeye? soo dhawow macalin. bismillaahi raxmaani raxiim. geedka aynu ka hadalnay ee la yiraahdo dhidinka ama malmalka gobolka Laascaanood iyo gobolka Sool looga yaqaano dhererkiisu wuxuu ku xiran yahay meesha uu markaa ka baxayo iyo xaaladda nololeed ee geedka. waxaa dhacda geedku inuu ka baxayo meel bannaan ah oo biyo ku habboon uu helayo iyo carro iyo nafaqo ku habboon. geedkaas waa dhici kartaa inuu 5 mitir gaaro laakiin inta badan celceliska dhirta geedka dhidinka ah 3 mitir marka uu 10 sano joogo 3 mitir ayaa celcelis u ah geedkaas oo ugu badan dhirta ugu badan markay dheeraato inay 3 mitir tahay haddaan yaraan lagu jarin. wabillahi tawfiiq. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Salmaan Daahir Cali waxaan ka tirsanahay kulliyadda beeraha iyo xoolaha. macallin su-aasheedu waxa weeyaan geedka maxaa taariikhda laga hayaa hadiga malmalka? geedkan malmalka iyo hadiga iyo beeyada iyo qaroonta iyo fooxa dhammaan dhirtaas oo ku badan dhinaca waqooyi bari iyo dhinaca waqooyi galbeed ee dalka Soomaaliya oo xeebta badda cas dhulkaas haysta
iyo buuraha iyo bannaanada badda cas ka rogan oo uu ka mid yahay gobolka Sool ama gobolka Nugaal hore loo oran jiray iyo gobolka Togdheer ama Cayn Valley dhulka la yiraahdo iyo gobolada Bari iyo Sanaag iyo Karkaar iyo Nugaal gobolka Hadeer la yiraahdo iyo Qardho iyo dhammaan dhulka waqooyi bari iyo waqooyi galbeed ku tahay dhirta loo yaqaan waxay ka mid tahay dhirtii masaaridii hore iyo faraacinadii hore ay u shidan jireen meelaha ay wax ku caabudaan iyo guryahooda iyo guryaha boqorrada ay isticmaali jireen waana magaca dhulka Soomaalida buntiga la yiraahdo ama Puntland ay u taqaanay masaaridii hore firagalaafyadeeda taasoo la cadeeyay boqorad ka mid ah boqoradii ahdigii labaad dynasty-gii faraacinadu inay safar u soo dirtay dhulka Puntland la yiraahdo markaas dhirtaas fooxleyda ama kamufooraha ay waa dhir caan ku ah dhulkaas aan sheegnay malmalkuna wuxuu ka mid yahay dhirtaas iyada ah ee maxaan ku yiraahdaa la shito Soomaalidu waxay u isticmaashaa geedkan daawo ahaan laakiin waxaan hadda rabay inaan xuso miyiga Soomaalida oo dhaqanka iyo dhirtan ku badan tahay Soomaalidu waxay u isticmaashaa oo shaac ah urta bahalada hoose markay guryaha ka galaan in maxaan ku yiraahdaa urta ay necab yihiin malmalka oo marka guryaha loo shido isna ayna adag tahay meesha bahalada hoose inay joogaan